maalmihii soo dhaafay waxaan siyaabo kala duwan aan bartaan TikTok ugu soo gudbinayay dabagalo la xiriira shakhsiyaad xambaarsan afkaar diimeed aanan aqoonin waxa ay yihiin isla markaasna isku dayaan in dadka dhexgalaan marar badan ayaan runtii muuqaalo noocaya sameeyay dhowr waxyaalood oo update ah oo muuqaaladii hore aan sameeyay xoga ka soo laabtay iyo arinta Umar Barbar isna aan xog kale aan ka helay ayaan muuqaalkan ku soo gudbin doonaa marka ugu horeysa markii aad fiiriso nin aan dhowta aan ka hadlay oo magaciisa leeyahay asaguna Omar Barriyo la yiraahdo oo dadka qurbahan laga celiyay oo dalka ku laabtay isla markaasna ay jireen tuumo aad u tiro badan oo la xiriiray kow asaguusan islaam ahayn iyo labo inuu gabdhaha geey xalane ay ku hareereysnaayeen ayaa officially dhowr maalmood ka hor wuxuu ku dhawaaqay inuu ka mid yahay maxaa la yiraahdaa kooxdan hadda sida weyn loo hadalhayo ee loo yaqaano Illuminati-ga wuxuu bartiisa Snapchat-ka uu soo dhigay qoraal uu ku sheegayo inuu ku biiray kooxdaasi isla markaasna habeenka uu ku biirayna inay lacag aad u tiro badan ay siiyeen ilaa $5,000 bil walbana ay lacag siiyaan ayuu si caadi ah u sheegay ma garanayo marka cidda ku qasabtay inuu proud ku yahay ama uu ku faanayo inuu qorshaha noocaaya uu dalkeena uu ka dhex fulinayo maxay Soomaalidu dowladda Soomaaliya ka qaban doontaa ma garanayo waxaan codsan lahaa message-kan mar kale la gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo ninkan arinta uu ku feejigan yahay gacantiisa waxaa ku sawiran waxyaalaha ay baryahan aynu sida xoog gale bartaan loogu wado Soomaaliduna ay si xoog ah hadda ugu baraarugtay awal qofka kaliya ka warramay anigu ahaa laakiin hadda waxaan arkayaa in dadku ku baraarugeen taas oo runtii arrin fiican ah gacantiisa waxa ku sawiran isla calaamadaas jirkiisa waxa ku sawiran oo dhan waa calaamadahaasi wuxuuna officially u sheegay inuu ka mid yahay kooxaha la leeyahay shaqamada ay markaas ay caabudaan ninka xogtiisa waa inta ninkii kaleeto ahaa Ashraf wali wuu xiran yahay la xaqiijiyay in maxaa la yiraahdaa xildhibaano tira badan ilaa 10 lagu sheegay qaar kamid ah magacyada aan helay iyo dad kaleeto oo qaarna ajaanib qaarna Soomaaliya xalane inta ka soo baxeen ay dhaqaale iyo si walba isugu dayaan in ninkaasi ay soo saaraan laakiin la soo saari waayay dowladda Soomaaliya waxay ku aragtay lama sheegin laakiin waa la hayaa xataa waa lagu dhicay Ilaahay baa leeyahay in maxkamadda soo taago culayska dowladda lagu saarayo kuraga yarka ah in maxkamadda la saaro wuxuu noqon doonaa ma garanayo maxaa keenay in sida loo weyneeyo su'aalo badan baa ka imaanaya tuunkii aynu qabnina korbu marka ayuu u sii kacaya waxa sidoo kale maalmihii la soo dhaafay la qabtay laba noo kala duwan oo labaduba naag iska dhigayay mid kamid ah ay dadku naagba u yaqaaneen ama dumar u ahaa karale hada luqadeeda dumar baan ka wadaa dumar loo arkayay ayaa la ogaaday inuu nin yahay waa la xiray mid kalena gaalka ayaa lagu qabta imisa dhuumanaysa maxay qabanayeen su'aalaha kale oo u baahanahay dadka waaweyn ee waalidiinta ah ee magaalooyinka waaweyn geysanaya caruurta inta gobolada laga soo diro jaamacadaha loo dirsanayo caruurtiina ka warqaba dalkaanu waa lagu soo duulay marar badan baa idin sheegay haddana dadku waxay arkayaan sida ay xaaladdu u culus tahay taa waa inta xalay muuqaal yaran duubay ayaa waxaan ku sheegay in Umar Barbar aanan arag asagoo intii hadda uu yaabanaa xaaladda adag ku jiray isagoo Ilaahay baryaya isagoo Ilaahay u laabanaya isagoo Quraan akhrinaya isagoo adkaar akhrisanaya qofka muslimka markuu yaabo meesha uu carro waa Ilaahay shaki baa nagalay anigu galay saakaba markuu bariyo soo kacay waxaan arkay muuqaalkiisa ugu horeeyay isagoo ayad kursi akhrinay arkay الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له وخير waxay arrintan muujinaysaa sida message-kaygu uu u gaaray sida xaaladdu ay tahay waa arrin wanaagsan dadka qaraabadiisa ehelkiisana waxaan ku sii boorinayaa in Quraan loo daaro tukan la yiraahdo aduu tukado Quraan badan akhri la yiraahdo Ilaahay tawakkal la yiraahdo Quraan la saaro halka ay dawadu jirto halka dawada halka ay jirto waa xagga alle iyo Quraanka dawadu jirta waxyaalaha aan la yaabka igu noqday oo aan saakay muuqaaladiisa markaan daawanayaan arkay waxa kamid ah Faranti buu qabaa Farantigaas waan soo zoom gareeyay waan arkay ka bacdi waxaan bilaabay inaan investigation ku sameeyo muxuu Farantigan u yahay xilliga aynu ku jirno wax walba aynu aragno waa inaynu consideration siino ama aynu si gooni ah ama il gooni aynu ku hayno baaritaan badan oo aan sameeyay ka bacdi waxaan soo gaaday in Farantigaasi magaciisu yahay magacaana isla markaasna uu Faranti diimeed waliba Kirishtaan ah u yahay magaciisa waxa la yiraahdaa magaciisa da Celtic Trinity North baa la yiraahdaa saddex madax buu leeyahay Celtic-ga ama Farantigan Celtic-ga la yiraahdo saddexda madax uu leeyahayna saddex afkaar oo kala duwan oo waliba afkaar caan ah ayay u taagan tahay madax kamid ah waxa la yiri wuxuu taagan yahay the father
madax kalena wuxuu taagan yahay baa the sun madax kalena wuxuu taagan yahay baa the holy spirit waa qadiyada christianity-ga aynu naqaanay weligeena aynu maqli jirnay ayuu u taagan yahay farantigana faranti caan ayagu ay leeyihiin muxuu u wataa su-aal badan baa ka imaanaysa waxaa suurtagal ah waxaa cabsi gelinaya in farantigan la socdaan baa suurtagal oo sixir ku jira I don't know I'm just guessing taas taa waa halkaa waxaana farayaa in laga bixiyo si guud markaa duulaanka diinta dalka lagu soo qaaday intaad u maraynaysan wuu ka weynyahay dad baa u fiirinaya mas'alo reer ah waxayna aynu ka waramayno uma fiirinayno yaa kugu reera diinta qofka ka doorbidaya reerka oo waxaanay diinta iyo dalka ka hor imaanaya markii la yidhaahdo qabiilka usoo baxayo asaa ka dambi badan baan aaminsanaa mid wax kale ku dhiiranaya arkaysaan waan qaldami karaa laakiin aragtidaydu inaan qof dhalinyaro ah aan jaafaysto oon xumeeyo aan haleeyo ma ah kaliya hal mida wey waa inaan dalkanaga ummaddeena aan la fasaxadin baan ka arkaya maahay macallin dadkana aqoon badni intaan effortka ku bixinaya ayaan jeclaan lahaa marka in dadka kale wax garanayana ayaguna energy ay geliyaan la akhriyo oo markaa la fiiriyo waxa ay yihiin iyo sida dalkeena diinteena loogu soo duulay aad baan idiin salaamayaa meel walba joogtaan ay soo boodi maqlaysaanba